السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dhammaan asxaabta kusoo dhawaada youtube channelka Somali Tijaabo 21. fadlan youtube-ka hadaa ku cusub tahay subscribe sar. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo sida aad ciwaanka iyo thumbnail-ta aad ka aragtaan hal shay ha ku sameynin suuliga. dadka qaar waxay u kasayaan xamaam, af-cali waa xamaam, af ingiriiskiisana waxaa la yiraahdaa suuli, af soomaaligiisana waa musqul. hal shay waxa u taqaanid hal shay ha ku sameynin suuliga, xamaamka ama musqusha. talo waxa isweydiinaysaa halkaas shay muxuu ahaan karaa. inta aan kuu sheegin ka hor waxaa waajib ku ah, waxaa jirto youtube kale oo magacii ku qoran yahay Abdi Axmed la yiraahdo. youtube-kaas hoos kumatiga ayaa soo dhigaya. youtube-kaas subscribe sa maalmaal dadaaf ayaa muuqaal u soo geliyaa oo ku mahadsantahay. okay, waxaan rabaa inaan ila wadaago hal shay oo suuliga lagu sameynin. waxaa xaaraan ka ah suuliga in aad ugu soo tagtid darkaaga. dadka qaar waa ka seenaa darkooda markay qabeysanaayeen ee suulida xir. marka la qabeysahayo caadi waa ka soo qaadanaysaa, laakiin waxaa la diidayaa suuliga darka inuu iskii jiro. haddaa gashatid horaa la soo qabtaa. suuliga darkooda iskii jiro oo meesha ku baryo ma fiicno. musqushina badanaa waxaa lagu tiriyaa meelaha ay ka buuxaan shayaadiinta. marka hal iska ilaaliyo suuliga yaa lagu soo taganin dar. haddii darka lagu dhaqaayo, marka darka oo lagu dhaqo halaa soo bixiyo. haddii dar meesha la gelinayo, marka aa musqusha markaa qabeysanaysa oo darka meesha gashatid, markaa qabeysatid darkaa hor u soo qaado. intaas ayaan ugu talin lahay asxaabta sharafta leh. fadlan muuqaalkan share daha si ay dadka kale ugu faa'iideystaan.